Dardaaran waalid, gabar ayaa hooyadeed la dardaarantay, waayo dunidan cidna ma oga meesha la isku soo jiro. Waa sababta waalidiin badan marka ay da' noqdaan ay u badiyaan dardaaranka. Hooyadii waxay tiri, hooyo iska ilaali saddexna yarayso. Saddexda iska ilaali ay dhahday, kow, hooyoy weligaa iska ilaali habeen socod, waayo habeenkii waa xilli uu yaryahay socodka dadka. Hooyoy iska ilaali hambadu waa waxa ka soo hara qofka oo uu ku siiyo. Fiicna qofka inuu qaato, waayo qofka ku siinayo hambadiisa waxa uu fiirinayaa hankaaga. Haddii uu yahay qof ku siinayo waxa uu ku dhihi lahaa, niyow intaan aan hayaaye aan gacanta wada gashanno. Hooyoy iska ilaali hadal badni, waayo dadku ma jecla qof hadal badan. Saddexda la dhahay yarayso, kow, hooyoy hurdada yarayso, waayo dadku ma jecla qof hurdo badan amaba caajisoole ah. Gabadha marka ay yeelato waxaa laga doonayaa in xilli hore ay kacdo si ay wax u qabsato, sidoo kalena inay noqoto qofka ugu dambeeya ee seexda. Labo, hooyoy yarayso cabashadaada, waayo dadku ma jeclo qof cabasho badan ama dhaliil badan. Ilaasho saygaaga. Saddex, hooyoy yarayso wax isiinta badan, waayo dumarka waxay u badan yihiin kuwa raggooda aan daryeelin. Sidaa darteed ogow ninkaaga. Ugu dambayntii, hooyoy ha kontaroolin ninkaaga, waayo inteed ka imaatay iyo erayo badan waa ay dhibayaan. In uu daacad kuu noqdo adiga ayaa ka keensan kara. Midda kale, ha kuu soo xiiso inta uu guriga ka maqan yahay. Ha yimaado isagoo jecel guriga, laakiin hooyoy guriga ha oga dhigin meel uu dhibsado joogitaankiisa. Waxaa soo diyaariyey walaalkiina Cabdulaahi Macruuf. Inta aan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe si aad noola socoto waxyaabaha aan soo gelino.